Assalaamu calaykum waa Dr. Mudug Dr. Dhamaantiin bidi salaamaya. Markan waxaan ka hadlaynaa waxa la yiraahdo deep vein thrombosis ama xinjirowga ku samaysma lugaha kuwaasoo keeni kara xanuuno halis ah qofka noloshiisa halis gelinaysa sida xanuunada sanbabka pulmonary thromboembolism la yiraahdo. Marka hadda muxuu yahay deep vein thrombosis? Deep waxa weeyaan waa vein thrombosis waxa weeyaan xinjirow ku samaysma ama guntin xinjireed oo ku samaysmaysa lugaha mid ka mid ah badanaa laba ma dhacda mid weey. Xididadaas gaar ahaan aroorayaasha waa kuwa dhiigga ka soo qaada wey wadnaha ku celinaya. Marka uu kaasi ku samaysmo ayay soo go'aan kaasna waxa uu keeni karaa soo go'itaanka ay soo go'ayaan xinjirtaas inta dhiigga dhex raacdo ayay gaadhayaan wadnahana waxay uga sii baxayaan sanbabkana waxay ku keenayaan maxay xiran bay ku keenayaan marka dhiiggii gaadhi lahaa ayaa ama qaybo ka mid ah xididada sanbabka ku dhex jira ayay xirayaan marka waxa ay keenayaan xanuuno halis ah bay keeni karaan qofka noloshiisa halis gelin kara haddaanayn laga hortagin ama haddii qofka goor fiican la daweyn. Marka waa taas waxyaabaha keenaya maxay yihiin? Waxyaabaha waxa keenaya ugu badan waxa weeyaan qofku inuu fadhiyo muddo dheer inay uu fadhi muddo dheer ku qaato hadday tahay inuu safar hadday tahay waqtiga safarada oo kale way keeni kartaa. Waxa keeni kartaa iyadana inta uu qofku xanuunsanayo haddii uu muddo dee dhakhtarka yaalo oo uu badanaa u badan yahay xanuunkaas mid uu aad u jiifo badanaa u jiifo iyadana waa keeni kartaa. Waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid ah qalliinada ayaguna keeni qofka qalliin lagu sameeyey ayaa isaguna kor u qaadi kara inuu samaysmaan sideedaba si guud xinjirowga dhiigga inuu dhaco. Waxa iyaguna keeni karaya maxay ahaydey dhanka qofka oo qaba xanuuno kor u qaada markooda horeba xinjirowga waxa coagulationka marka haddii aad arday tahay halkan aad soo gashay qaybtan bulshada dhan baan ugu talagalay waxaad taaban kartaa dhanka pathology-ga marka thrombosis iyo thromboembolism baan kaga hadlay. Marka taasina waa taas waxyaabaha kor u qaadi kara waxaa ka mid ah uurka oo kale haddii haweeney uur leedahay oo kale ayaa kor u qaaday estrogen-ta fara badan maasha la dhaho taas iyaduna waxyaabo badan ay keenta ka mid amaba dawooyinka loo qaato in ubadka la isaga ilaaliyo. Marka hormoonadaas ku fara badan kuwaasna waxay keenaan inta badan in ay samaysmaan xinjirow inuu dhiigga ku samaysmo xinjirow guntin xinjireed. Sidoo kale da'du iyadana waa keeni kartaa waxyaabaha keeni kara waa ka mid tahay marka oo badanaa qof markuu inta badan gaboobo 60 meelaha wixii loo dhaafo way keentaa walow marlayba aanay ka dhignayn inay da'daasi keenayso oo sababta imkaan waan shaqo sameynaya waa qof heli ka mid ah oo xanuunkani ku dhacay oo maaragtay da'yar da'da meelaha dhex ku jirta. Marka waa taas marka waxay ka dhigan tahay inay cid kasta ku dhici karto. Halista uu leeyahay hadda maxay tahay? Halista uu leeyahay waxa weeyaan maxay ahaydey waxa weeyaan dhanka sanbabka iyo wadnaha. Marka aan calaamadaha u galnay calaamadaha lagu garanayo muxuu yahay marka calaamadaha waxa weeyaan qofka inay halkaas badanaa meeshan hadda burca meesha la dhaho kale burca halka lugtaas dhudhunka qaybteeda dambe in qofku ka dareemo xanuun amaba ay bararto amaba ay milil keento oo ka dareemo kulayl fara badan halkaas marka uu taabto burca hoosteeda amaba qayb kale oo hadday kor u sii qaadanto halkaas bawdadaas lafteeda hoosteedaas way ku iman kartaa adigu hadba halkuu marayo ama meeshay ka samaysmay ayay ku keenaysaa. Taas waa kuwa hore weeye calaamadaha keliya la xiriira uun xididkaas uu ku samaysmay xinjirowgaas aroorahaas. Haddaba kuwa kale aan maaragtay qaybta casaanka kusoo koobay waa qufaca ay keenayso calaamadaha qufaca neef qabadka laab xanuunka dawaq waxaasoo dhan waxa keenaya waa marka uu gaadho haddii uu gaadho xididada sanbabka uu gaadho ayuu keeni karaya qofka inuu hataa neef qabad ku sameeyo haddii uu xidho xididka weyn ee sanbabada
geeyo dhiigga ku celiya si looga saaro carbon dioxide-ka la isaga saaro. marka dhiiggaas inta markuu soo noqonaya waa ka oxygen-ta soo qaadaya. marka dhibaato ku keenaya uu xidhaya sababkii halkaas waa taas sababta ku keenayo qof ku keeni karaa neef qabad ilaa halis qof uu gelin karaa noloshiisa. sidoo kale xanuunada kale haddii meel xidhado ku keeni karaa ay sababka ku dhaca. marka kuwaasna waa kuwa wixii la xiriira. sidoo kale wadnaha waxay ku keeni kartaa xanuuno kale fara badan ayay ku keeni kartaa. marka iyaga waxba sii geli mayno. waa haddii xaggaas xidhanto waxay ka dhigan tahay dhiigii gaadhayay sanbabka ma gaadhayo. haddaanu gaadhin wadnihii baa isku dayaya inuu dhiig badan gano wadnaha geeyo. taas waxay keeni karaysaa cillad u keeno pulmonary thromboembolism keeni karo oo ku keenayo wadnaha gaar ahaan qaybta midig oo talaxgab wadnaha midig buu keeni karaa. waayo wadnaha midig qaybtiisa waa ku ganaysa dhiigga sanbabada. haddii meeshii lagu geniyo xidhantaba dee way ku daalaya wadnaha ku daalaya. marka muruqyada wadnuhu hadday daalaan waxay noqonaysaa qofkii inuu talaxgab kaga dhaco oo dhiigii gaadhi waaya qaybi kala jirka. marka sanbabka uu gaadhi waaya. markaas waa taas. marka aan u nimaadno haddaba baaritaanka marka sidee loo baaraa xanuunkan isaga waxyaabaha loo baaro waxa weeyaan wax dhaga dhiigga in laga qaado weeyaan. baaritaan dhaga dhiigga waxa la yidhahdaa D-dimer test baa la sameynaya ama laga helayaa oo keenaya waxyaaba sheegaya inuu jiro samaysan waxaa loo dhaqaa guntan dhiigtimeed xinjireed Soomaali walow aan isagu ahayn mar walba ka 100% sheegay. laakiin hadduu isagu negative noqdo ama laga waayo D-dimer waxay ka dhigantay maaha xanuunkaas. markaas badanaa waxa weeyaan waa ka meesha ka saaray inuu xanuunkan jiro iyo inaanu jirin. haddii la rabo in la ogaado inaanu xanuunkan ahayn waxaan keenaya ayaa kan la sameeyaa. laakiin xanuuno badan oo kaleba waa D-dimer ku tusi karaa. laakiin waa taas. laakiin waxaa kale jira kan lagu baaro isaga ultrasound-ka kala dhaho oo lugta qalab yar la saaraya. qalabkaas wuxuu sheegayaa xididadu baaraya inay wax ku jiraan guntan ku jiraan meeshaas ayuu sheegayaa maxan jiro. marka kaasi ayaa aad isaga u muhiim. taasna waa taas. dhanka haddaynu ku soo koobnoyn marka kan waa wacyigelin guuduun. mar walba haddii xanuunkan dad halkan soo gashay mar xanuunkan lagu sheegay mar walba waxa weeyaan u tagta dhakhtarka wadnaha iyo kuwa xididada. dhakhtarkaasina u tagta weyn. marka waan gartay daweynta haddaba aynu galno. iyada daweynta maxaa lagu daweeyaa? daweynta waxyaabaha lagu daweeyo waxaa ka mid ah in la siiyo dawooyinka lidka xinjirowga la dhaho ama anticoagulants. kuwa weeyaan ay ka mid tahay dawadan aan soo qaadanay kan warfaarinta la dhaho. marka dawooyin kale ayaguna jira oo tan kuwana kale maaha. waxaa jira markuu sii daran yahay qolol waxaa la yidhahdaa thrombolytics baa la siiyaa. waxaa jira waxyaaba kale oo dhiigga la dhexgeliyo oo hoos u dhiga isagana in xinjirowga. waxaa jira in dhanka marka loo eego in haweenka uur kale waxaa jira iyagana kuwa gaar ah loo siiyo sida heparinta la dhaho. laakiin low molecular weight mid ah weeyaan oo ka dhigan aad ay u hooseyso miisaankeedu inta laga qaadanayo. marka way badan yihiin dawooyinka la siin karo. sidoo kale waxaa jira in qofku waxaa la siiyaa bandage waxyaaba lagu xiraa lugihiisa gijinaya compression weeyaan waa la dhaho. oo waxa weeyaan waxa weeyaan bandage waxa weeyaan waxyaabahan lagu xiro lugaha si ay u aruuriyaan una sameeyaan dhiiggaagu inuu dhaqaaqo. maadaama waxaan ay ku samaysantay fadhi fara badan qofku sameeyay meesha doona ha fadhiya maaha oo kaliya safarku kaliya. adoo gurigaaga jooga haddaad noqoto qof aan soconayn mar walba fadhiya dee lafteedu waxay sahashaa samaysanka xinjirowga. markaas waa taas. marka aan ku celiyo waxa weeye casharadan aan gaarka u sameeyo waxa weeyaan halkan waa wacyigelin inaan dadka ka ogeysiiyo haddii xanuunka lagu sheego qofku israahdo raadso ama maarta warbixin inuu heli karo cid wax uga sheegi karta afka Soomaaliga wax uga sharxi karta si marka uu sii raadsado cidda ku takhasustay. marka cidda ku takhasustay waa xanuunada wadnaha oo ku takhasusay. kuwa sababka laftooda waa soo gelayaan haddii la heerka sababka saamayso iyo kuwa xididada. marka almuhiim waxa weeyaan qof inuu dhakhtar raadsado weey haddaan waxa soo ka joogin dhakhtar guud balaftiisa. marka halkaas ku soo koobaynaa dhammaantiinba waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum.